hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee dowladdeegaanka Soomaalida oo ujeedooyinka ugu waaweyn ee loo aasaasay ay ugu horreyso in bulshada ay gaadhsiiso adeeg maaliyadeed oo wax ka beddela nolosha bulshada danyarta ah iyo kuwa kaleba islamarkaana laga shaqeeyo si uu adeegani u noqdo mid waara oo dhammaanba gaadha qaybaha deegaanka waxauna maareeyaa hay'addani adeegga lacagaha yaryar ee dowladdeegaanka Soomaalida mudane Khadar Axmed oo xafiiskiisa noogu warramay uu ka warbixiyey dadaalada ay wadaan si ay u ballaadhiyaan adeegyada ay bixiyaan gaar ahaan iyadoo lagu salaynayo xaaladda waqtigan lagu jiro ee coronavirus-ka laba arrimood baa ugu muhiimsan hay'addan adeegga lacagaha yar waxay u asaasan tahay inay adeegii loo baahnaa danyartu ay u baahnayd ay gaarsiiso iyo in ay macnaheedu sustainability-geeda xafiiskani uu sii jiro uu jiritaankiisa uu xaqiijiyo labada arrimood baa macnaheedu sal u ah mar walba xafiiska ujeedadiisu ma aha inay faa'iido iyagu soo xareeyaan ama la qaybsado lacago ka soo xarado faa'iido waxaasa laakiin faa'iido kasta hadduu soo saaro ama khidmadaha yaryar ee dadka laga qaadayo waxaa kaliya loo adeegsadaa sidii xafiiska loogu sii ballaarin lahaa oo meelo cusub iyo meelo uuna gaadhin maadaama ay jiraan deegaanka meelo hor leh haddana kolba looga furi lahaa marka annagoo taa ka duulayna maadaama imika xilligan lagu jiro xilli xaalad adag waxaan sameynaynay dadaallo badan oo xanuunkan si looga hortago wacyigelino fara badan inaan sameyno inaan taxadarkii loo baahnaa dad bulshadu inay yeelato iyo inaan abuurno jawi ayna dadku lacagta istaabsiinayn lacagta kala qaadanayn maadaama istaabsiinta xanuunkii uu la soo gudbin karo kaasoo aan adeegii Hello Cash anagoo isticmaalayna aan ugu talagalnay inay dadku lacagaha isugu diraan mobilkooda oo furnay adeegyo ku iibsa ah oo bilaasha oo si dhib yar qofku lacagta intuu ugu diro qofka kale isagoon taabanin uu alaabta u baahnaa ama wuxuu ka iibsanayay uu ka qaadan karo taasoo dhammaan deegaanka annagoo macnaheedu ku xisaabtamayna xaaladan adag ee jirtay iyo xanuunkan sidii macnaheedu dadku inuu ay uga badbaadi lahaayeen qaybta naga aadan xagga kamaaliyad ahaan ama financial service-ka xagga naga ku aadan waxa uu sidoo kalena mas'uulku ka hadlay dhanka maalgelinta iyo shaqo abuurka ay sameeyeen oo uu sheegay inay ka faa'iideysteen maalgelinta dad gaaraya 38,000 oo qof oo 24,000 oo ka mid ay ahaayeen haween sidoo kalena waqtigan ay diyaariyeen 150 dukaamada yaryar oo loogu talagalay in dhalinyarada loo qaybiyo isla markaana lagu bixiyo adeegyada ay bixiso hay'adda lacagaha yaryar ee dowladdeegaanka Soomaalidu waxaanu macnaheedu muhiimad gaar ah oo deegaanka aan u leenahay oo siinay bulshadeena deegaanka ku nool ee danyarta ah adeeg maalgelinta oo noocyo kala duwan loo fara badan oo dhammaan deegaanka meel aanan degmo aanan ka bixinin maalgelin oo shaqo abuur ka fulinin ayna jirin ama aan kolkol dhihi karnaba guri aynan gaadhin macnaheedu qoys deegaanka ku nool oo aynan maalgelintan bixino oo degmooyinka gaar ahaan meelaha magaalooyinka iyo qabalayada marka ugu yar yihiin ayna gaadhin wuu yar yahay deegaankeena marka la iyadoo hadda lacagta taagan ee xilligan gacanta shacabka ku maqan eenu maalgelin ahaan u bixinay waa 1.5 bilyan yaa taagan maanta oo macnaheedu dadka gacantooda ay ku hayaan ama ahaan loo bixiyay haddana waxaan noo qorshaysan inaanu adeegyadaas si ballaarino inaan hadda dadka lacagta lagu leeyahay maanta 30 ee active clients ka dhahno 38,000 weeyaan 38,000 hadda active ka inta 24,000 in ka badan waa dumarkana waa hooyooyinka guryaha hogaamiya weeyaan inta badan waxaan mudnaanta waqtigan ay soo badanayaan xarumo bixiya adeegyadani lacagaha ayaa waxa uu mas'uulku sheegay intaasi ay keenayso tartan dhanka tayada adeega ah adeeg Hello Cash waxaan kaga duwanaa adeegyada kale waxaanu nahay wadada adeegii u furay ee bulshadaba inuu adeegyadan kala xataa yimaadaan sababtoo ah habanahay marka koowaad sababtoo ah haddii aanan anagu ku tijaabin lahayn oonan meel wadada furi lahayn inay meeshan adeegaas ku shaqeyn kaliya in kale macnaheedu dadka su'aal bay ka gali lahayd mayna ku soo dhiiradeen marka bulshada oo dhibaato badan haysata markaan aragnay yaanu ka fikirnay inaan keeno adeegan casriga ah oo aanu dhibaatadii si dhib yar inaan loo xalliyo ama qodob koowaad talabaadin ka duwan waxa weeyaan anagu bulshada maalgelin badan baan u sameynaa waxa muhiimadda aan u sameynaa waxa weeyaan maalgelin fara badan baan bulshada u sameynaa muhiimaddanaduna ma aha inaanu ka faa'iidno bulshadanadii inaanu adeeg u qabano weeyaan adeeg markaad qabanayso of course wada khidmad adeeg aad ku qabanayso waa wax jiri kara laakiin muhiimadda aan oo aasaasanay naga go'an waxa weeyaan bulshadana adeeg fiican inay hesho oo aanan ahayn dad macnaheedu faa'iido raadis oo ka faa'iideeyo inta yar ee dadka ay u adeegayaan waxaan kaga duwanahay inay tahay tan tulla wada leeyahay oo ayna ahayn tuush dad gaar ah leeyihiin Soomaali microfinance bulshada deegaanka oo dhan baa iska leh
waxay u adeegaysaa bulshada deegaanka sababtoo ah macnaheedu dad shirkad ay dad gooniya intay yeesheen ka shaqaysanayaan oo faa'iido ka raadinayaan oo business ugu talagaleen oo business oriented ama tartanku adeega dadku u hagaajiya anaga laftanada inaan adeegana kor u qaadno oo tayeyno oo wax ku soo kordhino macnaheedu boorinaya markuu tartan yimaado adeegyada kale inay yimaadaan inay soo bataan inaan dadku adeeg fiican ay helaan oo markuu tartan yimaado fiican waxay kalifaysaa inay dadku ay doortaan adeega oo u tayo fiican annagu adeegana tayooyinku leeyahay security-ga ka mid ah oo qof walbahaar xaaladihii aad ka xataa deegaanka waxyaalaha ka soo saaray Hello Cash ka mid hay'adani adeega lacagaha yaryar ee dowladda Soomaalida oo deegaanka ku leh 36 laamood ayaa waxaa sidoo kalena u qorshaysan in lagu kordhiyo 10 laamood oo kale waxayna adeegyada ay bixiso ay ka kooban yihiin maalgelinta adeega kaydsiga xawilaadda lacagaha maamulidda maalgelinta mobile bank iyo adeega Hello Solar